wafdigan culimada ah waxaa horkacayay Sheekh Maxamed Cabdi Umul oo kamid ah culimada Soomaaliyeed kuwooda ugu waaweyn ee ku nool dalka Kenya waxayna soo gaareen magaalada Muqdisho. ujeedka socdaalka wafdigan ayaa waxa uu ahaa inay keenaan lacago deeq ah oo iska soo aruuriyeen bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalalka Kenya iyo Uganda. lacagtaasi oo lagu talagalay in lagu caawiyo dadkii Soomaaliyeed waxyeelada ka soo gaartay qaraxii weynaa ee ka dhacay 14 bishii Oktoobar ayna ka soo gudubnay. wafdigan ayaa lacago gaaraya $353,000 ku wareejiyay guddiga gurmadka qaranka waxaana goobjoog ka ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Sheekh Maxamed Cabdi Umul ayaa sharxaya sida lacagaha ay iskaga soo aruuriyeen bulshada Soomaaliyeed ee ganacsatada ku nool wadamada Kenya iyo Uganda. muhiimadda aniga wafdigan aan hogaaminayo aanu nimid oo ahay kolay waa laga warhayaa waxay ahayd inaan runtii ammaano aan haynay inaan wareejino oo meeshii loogu talagalay inaan ku wareejino safartanadu salaanta kadib qodobkaasa ya u ahaa muhiim u ahaa ama saldhig u ahaa maanadaasina waxay ahayd waxaan matalaynaa ummadda muslimka ah ee dalka Kenya ku nool oo musiibadii qaraxii ka dhalatay iskoyska Zobe musiibadii ka dhacday oo runtii aad ummaddu uga wada xanuunsatay gurmad badan la galay Soomaalidu meel ay joogtay runtii ka danqatay qayb baan marka ka ahayn barnaamijkaas. Cabdullaahi Shirwac gudoomiyaha guddiga gurmadka qaranka ayaa sheegay inta ay laag tahay lacagta ay soo gaarsiiyeen maanta culimada Soomaaliyeed Kenya oo hogaaminayo Sheekh Maxamed Umul iyo nin dhalinyaro ah oo sheekh oo ka yimid dhinaca Uganda waxayna gudoonsiiyeen lacag $300,000 oo dollar iyo $300,000 $350 waxaana gudoonsiiyay ergadii ka socotay wadanka Kenya ee Sheekh Umul oo hogaaminayay $53,000 waxaana gudoonsiiyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Uganda ku nool lacagtaasna waa ka gudoonnay. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa u mahadceliyay culimada Soomaaliyeed ee u istaagtay inay caawiyaan dadkooda Soomaaliyeed. marka waxaan aad u soo dhaweynayaa inaad noo timaadeen laakiin waxaan aad u dhiirigelinayaa in aadan noo gurmanina kaliya laakiin aad gogoldhig cusub samaysaan oo ah qarannimada ummadda Soomaaliyeed sida wax looga qaban lahaa anoo runtii aaminsan inaad wax badan ka qaban kartaan anoo aaminsan inaad wax badan ku tari kartaan haddii awal ay jiri jirtay inaadan fursad lahayn inaan madaxda su'aalo la weydii karin inaan la xisaabtami karin inaan albaabada furnayn waxaan rabaa inaad ka wareysataan culimada hadda halkan joogta nala shaqeysa iyo ganacsatada intaba waan soo dhaweynaa mar labaad waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. intaas kadib culimada ayaa sidoo kale waxay xafiiskiisa kula kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo isagoo ugu mahadceliyay isgarab istaagga ay muujiyeen culimada Soomaaliyeed loona baahan yahay in ay sii wadaan. Axmed Suleymaan, Honkebel TV, magaalada Muqdisho.